السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمانة قيادتي توين سلامي عشان كنا وعكو سابسن ياهي سيدا نسو دجسلين براش أو كاسو كو سابسن إن حفلة إن بولير كلا استعماله إن سيدا استعمال كنا ما كان سوى ربنا إن كدقنو حفلة بولير لوش لشدي أما سنة جرو كلا سيدا استعمال نزا إن لينك ديسكريبشن كويا الفيديو جوسيسا إن آيات كسو دانو سكرتان إن وحن طبعا دور دقيقة كهر haddii aan refresh dhaho waqtigu sii badanayaa ugu yaraan dhowr iyo 20 daqiiqo ayuu jeedaa dhowr iyo 23 daqiiqo kadib download ayaa ku dhufanaysaa kadibna faylkii wuu ku soo dagayaa markuu ku soo dagaba faylkii sidan ayuu ku soo baxaya waxa leedahay open ayaa leedahay furaysaa isla markii downloadkii ayuu bilaabayaa wax badan qaadkiisa ma ahan wuxuu qaadkiisa yahay 2.13 megabyte ma ahan kilobyte ma ahan gigabyte sababtoo megabyte ayaa gigabyte ayaa weyn megabyte ayaa ku xigo kadibna waxa uu hooseeyo kilobyte isla markaas isku soo dhameeyaba wax yar ayaan hoos ka soo dhigkan wax yar ayaan suginaa kadibna waxa leenahay double click ayaan ugu arkaa noo furmay double click ayaan siinayna sababtoo photoshopka ayaa noo furan isla markaa photoshopka loo furiyay hore ayuu ka qaatay brushka haddaan brush ku dhufto ayaan furo inta aad weyneeyo si fiican loo arko waxaan leeyahay large terminal ka dhig waa weyney kadibna markaan hoos imaano waad u jeedaa inuu soo qaatay bullaarka asigoo ayaa noocyo badan marka photoshopka aan si fiican oo furno filmayo kadib new aan dhahno resolutionka noocaas ayaad u samaysan kartaa adiga aniga resolutionka waxaan ka dhigaynaa 1000 iyo inta tagana kana inta ka dhigana 900 resolution adiga si tartiib ayaad ka dhigi kartaa muhiimadu waxay tahay sidaan u sharaxi leen brushkaas ku shubidana double click ayaa siinaysaa photoshop markay ku furan tahay double click si toos ayuu soo qaadanay ama waxa leedahay inta ayaad furaysaa waxa leedahay meeshaas ayaad ku dhufanay kadibna waxa leedahay load brush ayaa leedahay kadib marka brush ku dhufatid brushka meeshuu ku yaalay ayaad tagaysaa downloadka kale ayuu ku soo dagay download ka raadinaya kadibna waxaan leeyahay brush isla markii brushkii meeshuu ku yaalay ayaad ku dhufanaysaa kadibna load ayaa leedahay kadib waxaan soo bilaabaynaa noocyada mid ka mid ah ayaan qaadanaynaa sida kan oo kale kadibna meeshaan backgroundka uu yahay white-ka waxaan ka dhigaynaa in uu yahay waxaan soo qaadnaa paint package soo qaado backgroundka white ka bedel brushka soo dooro kadibna colorkii aad u rabtay inaad ka dhigtid ayaad geysanaysaa falaarahana waxaad ka weynaynaysaa bracketyada ayaad ka weynaynaysaa sidan ayaad u sii daynaysaa ujeeda brushka colorka haddana mar labaad waxaad u bedelaysaa white sida adiga aad rabtid isla markii haddana sidan blue ayaan ka dhigaynaa marka waxaad ujeedaa bullerka sida adiga markaas aad u rabtay ayaad ka dhigi kartaa haddii aan fiirisid backgroundka ayaad ku dul samaysay ma tiri kartid marka waxaad samaynaysaa control alt z z z saas dheh kadibna waxaad leedahay new layer soo dooro new layer wuxuu ku sameynayaa inaad markaad ku samaysid aad new layerka iska tiri karta daartid mid kale haddana soo daysanaysaa brushka markaad furtid haddana noocyada kale ayaad tijaabinaysaa haddii aan loof ka tijaabino waxaad ujeedaa markaad ku dhufatid loof ayaa kusoo baxaya noocyo badan ayaa ku jira waxaa kaloo ka mid ah markaan tijaabino kan waxaan ka dhigaynaa in uu noogu noqdo sidan kan waxaan ka dhigaynaa markaa kan guduud ayaan siinaynaa markaan waan fiirinaynaa wax yarna waa yareynaynaa sida u yareyno waad ujeedaa waa isku darsan yahay haddaan kusii daro kasiro bluge wax yar sii yareeyo marka waxaa ujeedaa bullerkii uu isku daba sidaas ayuu noqonaya marka insha allah bilna kadib muhiimadu waxay tahay dadka bilowga photoshopka cusub inay ka faa'iidaystaan brushka sidii u isticmaalaya marka inta badan waxaa loo isticmaalaa in aad u isticmaashid kan haddaan iska tirno mid labaad aan new layer aan doorano muxuu brushku anfacayaa haddii brushka labaad aan soo doorto waxaad arkaysaa in aad markaa ka dhigtid meeshaan tagasigoo kale aad soo dooratid waxaad ku qoraysaa ugu tala gashay inaad ka dhigtid kalarka taxiga ka bedel ee madowga white u bedel kadibna tagasiga weynay
oo aad u weyn textiga meeshaas waxaa ka dhigtaa 4 ka dhig kadibna controlka qabo muuska ku weynay isla markaa ugu talagashay markaas happy new year ayaad ku qoranaysaa new lay ayaa soo dooranay kadibna brushka ugu talagashay ayaad sii deynaysaa saas ayaa leedahay milimiyanka kale taariikhda gaalada kale in aad happy new year u samaysid muhiimadda maxay tahay aroosyada waa u samayn kartaa oo happy new year kaliya maahan marka sidaas ayaa brush u isticmaali kartaa insha Allah kaliya wixii su'aalaha comment ayaa ku soo qori kartaan ama auto 8 ayaad Skype ku soo darsan kartaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh